السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواد برنامج كيني حسوس قر دختر أيدين قرطو أيدين ديارسو دكتور باق بوبال أي كسو ديارسو مقالة هرقيسا ميس ويديسي وليقا إرساقدو إلهي بحيا وإمس النوع مجرتا إرساقد أنا لأركين أما أنا لطابنين لكن لدريمو إرساقد أنا قف كستا أنا لسينين وددك قاركود أما دد كوبان إلهي أوسيو inuu qofku uu dareemo farxad iyo raali inuu noloshiisa ka yahay ama inuu dareemo noloshoo dhan inuu qacanta ku hayo isagoo haddana nolosha aan qacanta ku haynin ma isweydiisan talow siduu bini aadam u xamili karaa duruufta ugu adag nolosha daraadda hadaf uu isagu keligii u aaminsan yahay oo dadka kalena aana u muuqan siduu bini aadamku uu daraadda hadafkaas uu saacado fara badan noloshiisa uga shaqeynaya uu waqtigiisa u huraya iyo caafimaadkiisa iyo xooggiisa iyo jidhkiisa iyo farxadda nolosha badalaadeed u huraya isagoo aana wax ka helayn ama cidina aanay ku dhiirinayn ama cidina aanay barbar taagnayn ama isbeddel noloshiisa aanan ku arkayn laga yaabo daraadda hadafka uu aaminsan yahay inay dadku ka fogaadaan ama dadku ay nacaan يكو دادكو آني أركين هدف كان وشقينا نتيجة أنا لأركين أمرات كيسا يسامين تيس أنا نلوشي سلقو أركين مركز هذا لدونا لقو أرانيا ولي فقير باتهاي ولي ميل ماد قارن ومحي فائدة عمل كان أدواد يوحانت قبنيسد سدو قف إيمان كيسو أقاري كراهير إنو آمنو إنو عمل كان خير كو قبنايو يصدقدن إنو وضو أما أكسي كرديو يسوكو هدانا آنا نتيجة أما راد آنو أركين تلو ميجرتا فرحad ka badan farxadda lacagta inuu qofku qacantiisa uu ku qabto ama adduun qofku inuu helo farxad ka qiimo badan oo ka macaan may jirta arsaaqad aana la arkayn aana la taabanayn oo laakiin la dareemo dadkan waxaan qabanay ama hadafkan weyn aaminsan ee hadafkan u ordaya ee natiijadna aanay muuqan ma waxay arkaan wax aanan inaku aanan arkin ما شرط بقينا عمل خير أما عمل وناكسن أن سندفر بدن نرشيد أن قبطه أما وقت جيج إنا نسيه وهدنا أنا راد كيسا نرشيد أنا كو أركن أما راد أنا موقنين إنا أركن نين سعودية أول إله علي الغامدي وكنول دلك سعودية نينكاسو وحو كنول يهي قوري كراء أو حافظ كمدا حافظها الشعبي قديم كي كيالا مقالة جدة ninkaas gaari ma laha caruurtiisa iskuulka geeya ninkaas uu retire garoobo iminka ma shaqeeyo ma laha sharikado ama ma laha guri kiro ay uga timaado ama beera ma laha ama hanti kale ma laha ninkaas wuxuu qura uu kaga duwan yahay dadka waxa weeyaan amal khayrka ayuu aad u jecel yahay عمل خير كان وجعليه وحي كلفتا إنه سند كستا وبنكيغا لعق وكا أماهدو ومدد أفر سندود إنه لعقتا دينكا وكبحيو لعقتا سحلكو جيا لعقتا وحو جيا دلالكا أفريكا سو عاوية عرورها أقوما يكونوا الأفريكا مدد 7 سندود أيا وحو كفالة قاداي عرور قاديسا 7 كونو أقونا أو كونو 8 دولدودو كلا دوان ninkaas caruurtiisa wuxuu ka dhoofay qoyskiisa 9 jeer sanad kasta caruurtiisuna way yaryeen iskuulka ku jiraan dadku waxay moodaan inuu hanti haysto ama ganacsato weyn inuu yahay laakiin isagu sidaa ma aha markuu noloshiisa ka sheekeynay wuxuu ku leeyahay waxaan u tagay dadka ganacsatada dalka ugu weyn hay'ado fara badan waan u tagay oo waxaan ku iri caruuro fara badan oo agoomo ah oo Afrika ku nool ayaan iskuulkooda ka bixiyaa iyo dhakhtarkooda iyo noloshooda baan kafaalad qaaday iga caawiya laakiin waa la diiday waxa lagu iri qof qurabaatay oo hay'ad kuma xidhnid kuma aamini karno taas baa ku kaliftay inuu markasta deyn uga qaato dawladda ama bankiga uu ka qaato hadhootana lacagta yar ee mushaharkiisa u soo dhacda ee retirementka intuu qaado iyo deynka ku bixiya caruurtiisana waxa u soo hadha wax yar ayaa lacagta uga soo hadha oo ku filan cuntadooda iyo kirada iyo iskuulkooda waxaan isweydiiyay marka ninka noloshiisa akhriyay baxaa ku kalifay nin konton jira inuu lacag uu sanad kasta u soo amaahdo daraadda caruur Afrikaana aan waxba isu ahayn oo aanu garanayn baxaa ku kalifay inuu nolosha adag uu ku noolaado uu kiro uu ku jiro caruurtiisana inuu markasta uu ka dhoofo daraadda caruur Afrikaana oo aanu garanayn
siduu camalkan uu u waday muddad 17 sannadood. haddaba raadkii wanaaggan uu qabanayo iyo saamayntiisu maxay noloshiisa uga muuqan weyday? weli waa faqiir, weli gaadhi ma karo, weli kiruu ku jiraa. haddaba isagoo aana arkayn isbeddel noloshiisa wanaaggan uu qabanayo, buxuu camalkan uu qabanay uu faraha uga qaadi waaye? maalin baa la waraystay telefishinka oo la weydiiyey, waa maxay sababta kugu kalifaysa dhibtaasoo dhan inaad u xamishid daraadda caruur aanad garanaynin ama aanad waxba isu ahayn? wuxuu ku jawaabuu ku idhi, waxa i damqaysa inaan arko caruur xanuunsanaysa ama wax aana baran karin ama dhibaataysanoo bilaa waalida. taas way i dhibtaa. daraadda caruurtaas inay wax bartaan oo nolol wacan ay ku noolaadaan ayaan tacabkaasoo dhan u xamilayaa. marka la weydiiyey lagu idhi, waa maxay saamaynta camalkan khayrka aad samaysid ee noloshaadaad ku aragtay? wuxuu ku idhi, horta guryo kaman dhisan, beerana kaman iibsan, hantina kaman iibsan camalkan aan qabto. noloshaydun isbeddel weyn kuman arkin, laakiin ilaahay ubadkayga iyo gabadhayda ayuu ii barakeeyey oo ii kaba igu dhiiriya wanaaggan aan qabto. anuu waxaan odhan lahaa, dadka qaarkood waxay aaminsan yihiin haddii muddad bil ay tukadaan ama muddad bil ay sadaqad bixiyaan ama dadka hadday caawiyaan, waxay aaminsan yihiin in ilaahay markiiba noloshooda uu beddelayo oo beddel khayr qabay markiiba ay helayaan, oo laga yaabo markiiba inay qani noqdaan ama ilaahay adduunka uu qacantooda uu ka saarayo. laakiin maaha shart inay waxaasu dhacdo. sababtu waxa weeyaan, markuu qofku wanaag uu sameeyo ama camal uu khayr uu sameeyo, marmar qaarkood natiijada adduunka uu ku arki karaa, marmar qaarkoodna ilaahay qofkan wanaagga samaynaya nolosha wuu ku adkeeya, wuu itixaamaa, oo ilaahay wuxuu eegayaa niyadiisu inay saadiq tahay oo niyadiisa ay run ay ka tahay camal khayrkan uu samaynayo, oo dhibta u xamilaya daraadda ilaahay inuu raali geliyo. ilaahay wuxuu eegayaa dulqaadkiisa iyo inuu hadafkan uu aaminsan yahay, oo dhib kastoo ku timaada inuu hadafkan uu ka dhaqaaqayo ama inuu ka adkaysanayo. anigu waxaan aaminsan yahay cali alghaamdi inuu farxad fara badan noloshiisa inay ku jirto oo aanu ka hadlin. laga yaabo ubadkiisu inay baari u yihiin oo aad ay ugu roon yihiin. laga yaabo inuu barakad fara badan jirkiisa iyo caafimaadkiisa inuu ku arko. laga yaabo daraadda wanaaggan uu samaynayo inay salaadiisu ay u wacnaatay ama ilaahay u fududeeyey qur'aanka inuu akhriyo ama inuu xafido. laga yaabo ducadiisa in la aqbalo. laga yaabo farxaddu caruurtaas uu ku beerayo iyo ducaday u ducaynayaan iyo ammaantay ammaanayaan inay taas ugu wacnaanayso inuu ubadkiisu ubad wacan ay noqdaan oo hadhowtan ubadkiisu nolol wacan ay ku noolaadaan. waxaa jirta arsaaqad aanan la arkin oo aanan la taaban laakiin la dareemo. arsaaqadaas waxay noqon kartaa barakad caafimaadkayga iyo ubad baariin ah iyo salaad wacan iyo qur'aanan akhriyayo iyo duca layga aqbalayo iyo qalbi ka raaliya ilaahay iyo itixaankiisa iyo dhib kastoo igu timaada iyo jannad isugaysa oo ballaadhkeeda uu leegyahay ballaadhka samaawaadka iyo ardiga. taas weeyaan arsaaqadaha aanan la arkayn ee laakiin la dareemo. waa mahadsantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.